Marwo Faadimo Siciid Ibraahim xogayihii hore arrimaha dibadda ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo wareysi gaar ah ku siinisay telefishinka Ariel hoygay ka degan tahay magaalada Hargeysa ayaa dhalinyaradii dhawaan magaalada Hargeysa kaga dhawaaqday waxay ugu yeedheen baaq shacab waxay u soo jeedisay inay ummadda hor yimaadaan isla markaana ay u cadeeyaan mabda'ooda waxaan jeclaan lahaa qolada baaqa shacab soo bixisay inay iyaga oo muuqaalkoodii iyo aragoodiiba la arkayo inay soo taagaan ciidatana sheegaan waxay u jeedaan saasaa lagu kala garanayaa laakiin la iskuma hayo maxaa hayd inay maanta fara kulul ay maxaa farmaajo iyo kooxdiisu ay nagu hayso inay maxaa hayd doonayaan inay maxaa hayd Soomaaliland ay khalkhal galiyeen shaki kuma jiro inay dad fara badan soo adeegsanayaan shaki kuma jiro in makanayna la leeyahay xisbi bay furanayaan ay doonayaan inay dadkii maxaa hayd Soomaaliland ka tagay wasiiradii carooday iyo maxaa dadkaasi marka la isxuluufaysto si dabadna khalkhal Soomaaliland loo geliyo marka waxa sheekooyinku way fara badan yihiin anigu inta midna dani maraadu ma lihi laakiin aniga in khusaysa in aniga khusaysa adiga ku khusaysa muwaadin kasto Soomaaliland khusaysa waxa weeyaan maxaynu kaga hortageynaa waxaan fara badan maxaa hayd dibadda inaga imanaya in imika laga hadlo laakiin maxaa hayd inay koba baaq shaqab iyo caynkan war baaqa shacabku fara badnaanaya aad buu fara mid nasteexa iyo mid khaladaba intuba way badnaanaysaa waxa weyn inaku sidabeen waxaan fara badan ay nagu soo socda aynu iskaga caabin karaynaa geesta kale Marwo Faadimo Siciid Ibraahim waxay sheegtay in dhammaan gobolada Soomaaliland ay xaq u leeyihiin inay ka hadlaan tabashadooda sidoo kale waxay sheegtay in gobolada Soomaaliland aanay u sinayn waxyaabaha ay haystaan Soomaaliland waxa weeyaan gobolada dibadaha oo dhan maxaa haydin aynu de Soomaaliland ay tiirarka ay ku taagan tahay marka waxa loo baahan yahay inaynu imaka ka baxno Hargeysa dhisideediyo aynu u baxno maxaynu goboladeena u qaban karaynaa goboladeena marka aynu wax u qabano bay doontaan tuulooyinkeeni u qaban karaynaa laakiin oo reer miyigeeni aynu qaban karaynaa oo aynu beeraleydii u qaban karaynaa saasaynu markaa dabatana aynu qaran buuxa aynu ku noqon karnaa marka loo eraga sanaag maxaa hayd waxa ay Hargeysa haysato ma haysato hadaa la eego Sool waxa Hargeysa haysato ma haysato hadaa la eego Boorama waxa Hargeysa haysato ma haystaan hadaa la eego Saaxil marka waxa weeyaan goboladeeni waxa ka jira inay maxaa hayd waxyaabo fara badan ay ka maqan yihiin inay markaa iyagu ay hadlaan oo yiraahaan waxba naga maqan waa xaqoodii weeyaan waa muwaadin inuu mayorku u hadlo governorku u hadlo oo mujtamaca u hadlaan oo xisbiyada mucaaradku u hadlaan oo salaadiintoodu u hadlaan oo qof walba u hadlaan waxa weeye waa sax weeyaan waayo waxa weeyaan marka aad gurigaaga aad ka soo qaadid ilmahaaga ku hadli waayo aaba waxbaan u baahanahay meel xasuusanaysaaba waxaad sameeysaa Fariid weeyaan wuu ku aaminsan yahay iida dadna wala iska ilaabaya laakiin aad wax siisaa waxa weyn kala 24 saacad kugu qaylinaya ilaa aaba waxbaan doonaya aaba kana iga maqan aaba ka wad iska aaminsanaysaa marka waxa weeyaan inay goboladu ay hadlaan oo yiraahaan waxba naga maqan waa xaqoodii dadka qaar adiga siiyaan arimahaaga uga hadla maadaama xisbigii wadanaad ka tagtay u cidnaad hore soo martay waxay leeyihiin Faadimo Siciid waana shaacinuune xisbigii kulmiye si bareer ay ugu beertay arinta ba ka war horta anigu maalinta aan si bareer meel ugu beerayo markii horena maxaa hayd maan ka baqan imaka aan kama baqan marka aan ku beerayay halkan ku beerayay meeshan tagayaan aan sheeganayo waqtigeedii laakiin xaadirkan daanu meelna kuma beerin meelna ma joogo qolada baarlamaanka iyo guurta waliba go'aada guurtida maxaa hayd la shaqeeya imaka COVID-19 baa naga soo dhaxgalay laakiin shaqooyin fara badan baa maxaa hayd imaka noo socotay oo qaranka maxaa hayd u dan ah doorkii horena waana kii aanu tagnay maxaa hayd labada baarlamaan ay nooga soo baxeen shirar aad iyo aad u qiimo badan oo wadankana maxaa hayd qiimo u ah marka anigu inaan qaranka Soomaaliland aan u shaqeynayo markaan mucaaradka ku jirayna waan u shaqeyn jiray Liban Cismaan Ali telefishinka Ariel